maxamed rashiid waxaan sanadkii 1992 isku baranay London gaar ahaan daarta Bush House markii aan ku biiray laanta Soomaaliga ee BBC World Service. wuxuu ka shaqeynayay waaxda xiriirka iyo baarista dhageystayaasha BBC iyo heerka BBC marka la barbar dhigo idaacadaha kale. gaar ahaan wuxuu qaabilsanaa xafiiska ay ku soo dhacaan waraaqaha ay soo diraan dhageystayaasha laanta Soomaaligu. waraaqaha oo ay dhageystayaashu soo dhigi jireen boostada waxay ahaayeen dariiqada ugu habboon ee ay BBC kula soo xiriiraan maadaama aan internet markaana soo gaarin. waraaqahaasi waxay iskugu jireen kuwo ku socda barnaamij gaar ah sida baafinta, tacsida, waxay ila tahay, waxweydiin, ogaal, suugaanta, arrimaha qoyska, qubanaha talaadada, bandhiga sabtida, caweyska sabtida, muusiga iyo salaamaha iyo qaar kale. waraaqaha qaar waxay ku saabsanaayeen kaliya in ay codsadaan in waraaq ahaan loogu soo diro mawjadaha laga dhageysan karo laanta Soomaaliga ee BBC magaalada uu qoraha waraaqda soo dirayo markaas joogo. waraaqaha qaarkood waxay ahaayeen dacwad ama bogaadin ku saabsan warbixin, waraysi ama barnaamij ay laantu hore u sii deysay. laanta Soomaaliga wuxuu u shaqeyn jiray toddobaadkii 2 maalmood. wuxuu qaabilsanaa wararka iyo warisyada ka baxa BBC kuwada noqon kara taariikh in uu kaydka ku daro. maxamed rashiid wuxuu ahaa nin la saaxiib ah aqoonta iyo waxbarashada, weliba jecel in sidaa loo arko nin wax aqriya ayuu ahaa. isaga oo labada shaqo haya ayuu maxamed rashiid wuxuu ku mintiday in uu dhowr jaamacadood ka qalin jabiyo kadibna sameeyay cilmi baaris uu ku qaadanayo shahaadada PhD. wuxuu tegi jiray in uu soo dhageysto muxaadarooyin cilmi ah kana qayb galo shirar iyo siminaaro aqooneed oo qaarkood uu ugu safro magaalo kale oo UK ka tirsan ama dal kale. taas ayaa keentay in rag ka tirsan tiimka BBC ay ku xifaaleyn jireen naanays ah aqoon-yahanka. wuu safar badnaa, wuxuu jeclaa in uu arko qof Soomaali ah oo guul gaaray gaar ahaan heer caalami. wuxuu mar igu yiri, saaxiibtinimo aan diyaarad loo raacin si la isku siyaarto ma ahan saaxiibtinimo weyn. waxa kale oo uu jeclaa diinta Islaamka. wuxuu ahaa nin ahlu dariiqi ah, waxaana filayaa in uu markiisii horeba iskuulka ku dhigtay sheekh. anigu si gooni ah ayaan u saaxiibnay, waxaa naga dhaxeeyay wax shaqada ka baxsan. in badan ayaan sheekaysanay, cashooyin badanna waan isku raacnay, qaar noo gaar ahaa iyo kuwa aan dad ajnabi ah la cashaynayba. habeen ayuu igu yiri, waxaan doonayaa in aad ii raacdo nin Muqdisho ka yimid oo aan doonayo in aan soo salaamo. nin magaciisa aan aqaan laakiin aan weli arag oo ah ganacsade siyaasad ka warqab ah. waan israacnay, ma ogeyn in ganacsaduhu uu isna suufiyada ka agdhow yahay. habeenkaas waxaan saacado badan ku dhex jirnay in la marsado bun lagu soo shubay kurbin, la qariida daango, foox la shito iyo iga rumayso weliba digri salaan. saaxiibkii maxamed rashiid inkasta oo guur hore iyo caruur uu soo maray, anigu waxaan ku xasuustaa nin keligii noolaa. habeen ayaan xasuustaa in annaga oo joogna xaflad BBC oo sanad cusub dhalan raba loogu dabaaldegayo Bush House uu ii sheegay in sanadka cusub oo qorshihiisu yahay in uu guursado. waxaan weydiiyey gabadha nasiibka u heshay midda ay tahay. wuxuu iigu jawaabay, weli ma aqaan. habeen ayaan isaga iyo xaaskiisa cusub ku wada cashaynay London, kadibna jawiga oo wanaagsanaa awgiis waxaan goosanay in aan ku lugayno webiga Thames jiinkiisa. webigu wuxuu London u kala qaybiyaa koonfur iyo waqooyi. jiinka waqooyi ayaan lug uga bilownay buundada Waterloo, annaga oo London galbeed u soconna ilaa baarlamaankuna soo xiro ayaan lugaynaynay. wuxuu ahaa nin caashaq hayo oo aad u faraxsan. dhowr jeer ayuu istaagay, ii dhiibay kamaradiisa oo iga codsaday in aan isaga iyo marwadiisa ku sawiro webiga jiinkiisa. runtii waan ku farxay in saaxiibkay aan aniga iyo isagu isku sheeko daalnay, isaga oo keligii hoyda, anna aan qoys leeyahay, aan hadda nahay barbardhac. wuxuu ahaa nin aaminsan in Afrika ay midowdo. dhaqdhaqaaqa Pan Africanism ayuu ka mid ahaa. maxamed rashiid wuxuu ahaa nin ay Soomaalinimadu ku weyn tahay,
ku fog afrikaannimada, ku faana muslimnimadu ay aad ugu weyn tahay, suufi ah. haddana wuxuu ahaa nin deegaameed oo aad u jecel si dhab ahna u rumaysan deegaankiisa awdal iyo kadib Somaliland. wuxuu iyadana jeclaa magaalada Muqdisho oo uu ii sheegay in uu baanka ka shaqayn jiray ka hor inta aanu ku biirin BBC. sanadkii 1989 mar uu fasax ku tagay Muqdisho wuxuu la kulmay barnaamijkii lagu dhintay ee masjidka Sheekh Cali Suufi, arrinkaa oo markii dambe uu uga warramay BBC. berigii aan isbaranay iyo sanado badan oo xigay waxaa la wanaagsanayd in Soomaalidu ay israacdo oo ay danteedu sidaa ku jirto. Maxamed Rashiid wuxuu ka qayb qaatay mashruuca BBC ee tababarka suxufiyiinta Soomaaliyeed. wuxuu tababaro ka soo bixiyay Muqdisho iyo Hargeysa, isaga oo ay wada shaqaynayaan tababarayaal ay ka mid yihiin Maria Fran Rath, Yunis Cali Nuur, Kalased Hagis iyo Yuusuf Xasan. markii internetku soo baxay waxaa fududaatay welibana dhaqso badisay in ay dhageystayaashu email kula soo xiriiraan BBC, idaacaddana ay ka dhageystaan internetka. sidaas darteed waxaa la xiray waaxda Maxamed Rashiid uu la shaqaynayay. dhanka kaydkana waxaa la soo rogay in cajalad laga maarmay oo barnaamijyada lagu diyaariyo hab dijitaal ah, idaacad kastana oo la sii daayana gebigeedba la kaydiyo. markii uu BBC ka tegay Hargeysa ayuu degay guri magaalada galbeedka uga baxsana ayuu dhistay oo isagu ku faraxsan uu gaari igu qaaday oo uu isoo tusay. saaxiibkay Maxamed Rashiid wuxuu aayar ugu qancay aragtida ah in Somaliland ugu badiso in ay gooni isku taagto. wuxuu wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka noqday xukuumaddii Siinlaayo. arrimo badan ayaan ka tashanay. Maxamed Rashiid wuxuu ahaa saaxiib aad ii dhiirigeliya, gaar ahaan marka aan ku biiro tartanka gudaha BBC ah iyo marka aan u shaqo tago waax kale oo shaqadeedu barasho iyo hanasho iga baahan tahay. aad ayaan uga doodnay fikirka cusub ee uu qaatay. waxaan ahayn saaxiibo isku kalsoon oo si adag oo aan turxaan lahayn uga dooda mowduucyo aad u kala gedisan: taariikh, siyaasad, dhaqaale, amni, shakhsiyaad, jacayl, isbarbardhig, magaalooyin ama wadamo, iyo dabcan mustaqbalka Soomaaliya, midnimo mise. laakiin sida aan markaa kadib bartay, Maxamed Rashiid wuxuu dhibsaday doodayda, waxayna saamaysay xiriirkii dhowaa ee naga dhaxeeyay. sanadkii 2012 aniga oo Hargeysa u tagay aaska Abwaan Gaariye ayaan Maxamed Rashiid isku aragnay Hotel Mansour. si qabow ayuu ii salaamay. salaada maqrib ayaan wada tukanay. ma hubo inay ahayd in uu weli iga xun yahay iyo in ay sababtu ahayd xanuun culus oo uu baryaha ka soo kabanayay. shakhsiyadda Maxamed Rashiid waxay ahayd mid aqoon jecel, una saaxiib ah, Soomaalinimada jecel, aaminsan inay Afrika midowda, aan cidna iskala sarrayn, ama ha noqoto shakhsi ama ha noqoto qowmiyad kale, mar walbana ah arday jecel in uu aqoon hor leh kororsado. intii uu BBC ka shaqaynayay xiriir dhowna uu la lahaa laanta Soomaaliga, waxyaabaha ugu weyn ee ay dhageystayaashu ku xasuusan karaan waxaa ka mid ah warbixintiisii qalalaasihii Muqdisho ee July sanadkii 1989, taxanaha sahan oo uu ka soo xulay kaydka cajaladaha ee BBC laanta Soomaaliga, iyo waraysi uu Generaal Caydiid oo badanaa aan saxaafadda la hadal uu uga soo qaaday magaalada Kampala oo ay labaduba uga qayb galeen shir Pan Africanism ah. allaha u naxariisto Maxamed Rashiid. haddii aan soo koobo, wuxuu ahaa akhyaar qiimo badan, wuxuu ahaa nin ku adag salaada, quraan akhrisna badan.